bal muuqaalkan ila daawo waa maxay waxa tiinka lagu shubayo maxaase laga samayn doonaa waxa tiinka lagu shubayo hubaal haddii aad muuqaalka dhammaysato wax badan ayaad ogaan doontaa muuqaalka la garee siina sheer garee si dad badan horta muuqaalka uu gaaro sidoo kale halkan waxaan ku soo gudbiyaa muuqaalo faa'iido miran u leh dhalinyaradeena iyo weliba bulshadeena adoo ka soo eegaya barta hadda adiga daawanayso ninkan idiin muuqda waxa uu soo qaatay tiitiinkana dalkeena waa laga helaa waxa uu ku shubayna waa tixriga noociisa cadcadka ah waa uu shiiday culimada qaar waxay leeyihiin borotiino badan ayaa horta bahalkaasi ku jira markii lagu shubo sidaan oo kaleeto loogu shubana waxaa dhalanaysa waxa hortiina ka muuqda oo ah sidaan gaduudka ah ayuu noqonayaa markii tiinka lagu bacrimiyo waa la soo qaadaa markii la soo qaado dabadeedna waxaa lagu shubaa biyo degan isla markaasina qandiir ah waa la qasaayo waxaa la sameeyaa in la filtareeyo dhexdana laga geliyo shaandho oo waxaa la kala reebaa biyihii iyo qashinkii ayaa la kala reebaa deedna waxaa la sameeyaa in biyihii dib loo diiriyo lana kululeeyo ilaa uumitada ay ka baxdo loona helo midabkii gaduudnaa ee markaan loo baahnaa marka la qalajiyo xoogaa waa la soo qabtaa sidaan oo kaleetana waa loo garaacaa sidaani howsha kuma eko oo waxa uu maray boroseskii 3 hadda waxa uu gudbayaa boroseskii 4 oo waxaa lagu darayaa maadadii adkayn lahayd xumuuradda ama rooseetada gabdhaha afka ee inta badan ay marsadaan ayna jecel yihiin sidaan ayaa hadda lisugu qasayaa waxaana la soo qaadayaa istaambadii dusha loogu shubi lahaa waxaana laga jarayaa wax walboo saa'id ku noqon lahaa sidaani hadda waxaa ku soo gabagaboobay rooseetada dumarku ay afka ay marsadaan waxaa soo gaartay gabagabada muuqaalka sii sheer garee lana wadaag asxaabtaada si uu meel dheer muuqaalka u gaaro mahadsanid